محو محمد إليك أحدية محو أحدية شعبك الصومالي الآن ماها شعبي أقبل عبورينتا ماها شعبي أقبل عدادسك ماها شعبي أقبل إلا واحد قدبو حرمدو دي حقوق دودا ميا أقبل إنسان حقوق دي إلا واحد قدبو ميا أقبل إنسان إلا إذن عبوريو هورتي تشربا وواي قف كيسين هذا دمع سيقلو وحويان واريا دالانتيد هورتي تشربا وواي ركاوات بدن باواي دولة لك حقوق بدن باواي عندنا حقوق ديوذا مواطنين تلقوا ما حد بيكرهوا وحينو لنا هاي ركا وريا شيخ الحلم ايه الرئيس محمد عبدي إليك وإنو حريتي سهلا محمد عبدي إليك تيفيكي سينا والله بالله قيستي إساقينا والله حراي وحد دنبيو لقو سووغينا مجرو سببو وحرينينا مجرتو إن تعدي لقو سميي oo baaskoorad lagu qabtay oo madax lagaga qabtay oo la garaacay waxaanu leenahay taasuna haday jirto way soo bixi doontaa waxaad ogtihiin inuu walaalkeen imaka ba xidhan yahay maxamed ilig iyo coldoon oo anigu aanan xarig u aqoon haddaan bahda sharci yaqaanada nahay waxaan u naqaanaa inay qafaalasho tahay waxaan kaloo doonayaa inaynu laba mir aamus ku taageero محمد عبدي إليك أي الله مرنا وسنانه محمد عبدي إليك يا صحفيين تكلا حالك كوتش ربا وحنوس شديني السيدة وقول نخصها فضل حرية دول محمد عبدي إليك تيفيكي سينا والله بالله قيستي إساقينا والله حراي واحد دنبيو لقو سووغينا مجرو سببو وحرينينا مجرتو وحانو سو جيدينينا عدة هايستا بلي لغايستاي تيفيكي بلي لغدنا سو عليا إساقينا حريتي سو عليا شعبك الصومالي الآن ماها شعبي أقبل عبورينتا ماها شعبي أقبل عدادسك ماها شعبي أقبل إلا واحد قدبو حرمدو دي حقوق دودا ميا أقبل إنسان حقوق دي إلا واحد قدبو ميا أقبل إنسان إلا إذن عبوريو هورتي تشربا وواي قف كيسين هذا دمع سيقلو وحويان واريا دالانتيد هورتي تشربا وواي ركاوات بدن باواي دولة لك حقوق بدن باواي عندنا حقوق ديوذا مواطنين تلقوا ما حد بيكرهوا وحينو لنا هاي ركا وريا شيخ الحلم ايه الرئيس محمد عبدي إليك وإنو حريتي سهلا وإنو محكمة قرصور عدالة لهلا مواطنين والله حري كرا والله ايضين كرا قف قدام بيوكلي كرا لكن وإن صفة شرعية الله حدا وإن صفة شرعية يقرصور عدالة وهلا وإنه سداد يا فرتن ساعدون وشرعي لبوه كان محكمة عدالة وإن هلا قرين الدفاع وحوي محمد عبدي إليك وقت دير بوحنا وأن محكمة له الكيني ويجينا وين بالا كيني واقف شرعي بينه لنا وإنه عبارين حرق محمد عبدي إليك محمد عبدي إليك وحنا نقواقان وريه قرات كيسو كورية هاي قرنبدا الصومالي لان دفاعه midnimada iyo wada jirka ummadda ka shaqeeya saaxiibkay walaalkay maxamed cabdi sheekh maxamed ilig wuxuu ku xidhan yahay xaq darro horena waanu uga hadalnay caawana waan ku daraya xaq darro ku xidhan yahay waxaanu leenahay sharciga hal horgeeyo hadaa u haysaan waxeeda hadii kale xoriyadiisa loo soo celiyo sida ugu dhaqsaha badan xoriyadiisa loo soo celiyo xaqna ugu ma lihidin waliba waxa la sheegaya oo wararka qaar sheegaya in تعدي lagu sameeyay oo baaskoorad lagu qabtay oo madax lagaga qabtay oo la garaacay waxaanu leenahay taasuna haday jirto way soo bixi doontaa sida maanta تعديgi Cabdiraxmaan Abees loo geystay u soo baxday ayay u soo bixi doontaa waxaanu leenahay dadka yaan lagu xad gudbin ayaanu leenahay xorriyada waxa ay dastuur uga dhigno nidhi waa ummadani waa xor
fikirkooda lama caburin karo ee xeer golo ama iga dhadhawaatay ee xeer golo aan loogu koobin waxa weeye si ummaddu aanay iskugu qarxin weyn buuggani caawa hal su'aal buu inagaga tegayaa muxuu maxamed ilig u xidhan yahay muxuu u xidhan yahay intan aynu halkan ku soo camirnay waa su'aasha aynu kala tegaynaa halkan muxuu maxamed u xidhan yahay waxa weeyaan hirdanka ka dhaxeeya xigtanimada xukunka iyo xorriyaddu waa seeska uu ka duulaya buuggani waxaad og tihiin inuu walaalkeen imakaba xidhan yahay maxamed ilig iyo coldoon oo anigu aanan xadhig u aqoon haddaan bahda sharci yaqaanada nahay waxaan u naqaanaa inay qafaalasho tahay 23 cisho ka bacdi ayaa maxamed ilig la hor keenay maxkamad sifila iyadoo ay waajib ahayd in markii sidaa loo keenay la sii daayo sida shuruucda inoo qoran ay sheegayso haddana weli halgankii wuu socdaa maadaama aynu dastuur leenahay dastuurka mabaadi'da ugu waaweyn waxaa ka mid ah in la ilaaliyo xaqa uu leeyahay qofka muwaadinkii ama xuquuqda aasaasiga ee xorriyatul qowlka iyo tiisa bini'aadanimada midnaba lama dhowrin muwaadiniin ay xubnahaasi ka mid yihiin iyo qaar badan oo kale oo uu cabdiraxmaan ka mid ahaa ilaa mid kastoo inaga midoo innaga inagu jiraa uu cadaalad rasmiya helo ilaa kuwa jeelasha ku jira ee garyaqaanadu magac dhabeen ilaa uu cadaalad helo weli meeshaynu dooninay maynaan gaadhin afartaa taayardanaha igi weyseejiyeen adeer maalin walba saas u banjaray imika halkee banjarnay igu dhow yaa rabbi walaala taayiradan baan u baahnaa in way ga banjareen shalayna way ga banjareen maantana way ga banjareen waxaad gashanaysaa taayirada la yiraahdo double star maxay ahayd waa taayiro tayo leh oo wanaagsan oo aan kaa banjarayn inaadan xagin ka helayaa waxa keentay shirkadda macquul sax meel kasta oo laga helayaa meel